shir jaraa'id oo goordhow muqdisho ku qabtay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare Mawlid Xuseen Guhaad ayuu kaga hadlay khilaaf u dhaxeeya gudoonka golaha aqalka sare iyo arrimaha doorashooyinka dalka. Mawlid Xuseen Guhaad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ayaa ku eedeeyay gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi inuu hortaagan yahay bilaabidda kulamada baarlamaanka iyo in la helo doorasho xilligeedii ku dhacda. muddada aan haysanno bisha oo maanta 10 ah baarlamaanka Soomaaliya sida aan shacabka u sheegnay markii aanu qabanaynay muddada 27 bishan Juun baarlamaanka waxay ahayd inuu degdeg u howlgalo oo maantaba kulan iyo laba la yeesho. arrintaasi waxaa dhacday xagal daacin ka timid gudoonka golaha aqalka sare gaar ahaan gudoomiyaha golaha aqalka sare 6 bisha iyo saaka inta u dhaxaysay waxaanu lahayn kulamo gooni ah. gudoomiye Cabdi Xaashi waxa uu si cad u diiday in laga faa'iideysto waqtiga yar ee harsan sharcigan ansixintiisana labada gole si wada jira loogu gudbiyo ayadoo arrintaasi ay ku caddahay waliba qoraalkii uu ku magacaabay guddiga isku dhafka. waxaan isku daynay in gudoomiyaha laga qanciyo inuu arrintaa ka joogo